burburkii Soomaaliya ay qarannimadeedii ku burburisay kadib waxay gashay Soomaaliya marxalad ka soo kabashada oo ku siman ilaa iyo in ka badan rubuc qarni. Jahwareerkaas waxaa lagu sababeeyaa qodobada soo socda. 1. Musuqmaasuq iyo eex meesha ka saartay kartidii iyo wax wadaagii boogaha lagu dhayi lahaa. 2. La'aanta hogaamiyayaal aragti fog. Waxay waayeen la taliyayaal tayo leh waxayna isku wareejiyeen koox iyaga ka amar qaata oo aan waxba dhaamin. Taasi waxay keentay in dadkii la rabay in aragti dheer loogu dugaado ay saaxadda ka muuqato. 3. Jamashada awoodda xukuumeed iyo riyada kaligitalisnimada taasoo ay ka dambayso dareenka ah inuu qofku degdeg u taajiro oo ka indhasaabnaado dareenkii ahaa in qaranka la caymiyo. 4. Iyada oo dowrkii hoggaan dhaqameedyada bulsho siyaasad la geliyay taasoo ka dhigtay hogaamiyayaashii dhaqameed inay noqdaan subac siyaasadda ka dhex kalluumaysanaya oo fursad ka ilbaadsada saaxadda siyaasadeed. 5. La'aanta fursado shaqo iyo caalwaa ku yimid dhallinyaradii ama jiilkii cusbaa taas oo jiilkaas cusub u baylihisay inay fursado ka raadsadaan hawlo qayru sharci ah. 6. Shacab ay qabyaaladii indha tirtay oo dhaandhaantay dareenkii wadaniyadeed kaasoo gogosha u xaaray is-aaminaad la'aan iyo colaado sokeeye oo bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ah. Haddaba gunaanadkii waxaa la isweydiin karaa su'aalaha kan: ma la sixi karaa cudurka kan siyaasadeed ama bulsho oo Soomaalida haleelay? Wixii rag u kaco rabbina aqbalo waa rumoobaan bay Soomaalidu tiraahdaa. Laakiin talow cid u kacaysa oo waddankan inay caymiso u istaagaysa ma ku jirtaa mujtamaca aqoon-yahanka iyo indheergaradka Soomaaliyeed? Haddii taa la waayo waxay jidka u xaaraysaa in waddanka lala wareego ama la goosgoosto. Kenya danaha ay Soomaaliya ka leedahay baa tusaale u ah waxa Soomaaliya lala damacsan yahay.